maanta oo dhan qabanqaabada iyo u diyaargarowga banaanbaxa ballaaran ee banaanbaxa nabadeed ee berri inuu ka dhacay ahayd taalada daljirka Dahsoon. Arna banaanbaxi waa sidiisii waxba iskama bedelin. Waxaa ku soo kordhay oo kaliya caawa in ay ciidamadii dawladda ay soo weeraraan farxadii banaanbaxa lagu qabanayay hotelkii aan deganayn iyo ereydii oo dhan inay soo weeraraan ay ku soo weerareen baabuurtii qafilneed ee beebaha ahayd ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waana si darro weyn in baabuurtii iyo qalabkii iyo hubkii loogu talagalay in lagula diro cadowga al-shabaab goob shacab Soomaaliyeed oo rayida berri inay ku soo bandhigaan ra'yigooda ay rabeen in caawa lagu soo weeraro oo security lagu kala eriyo oo madaxdii lagu handado oo dadkii hordhaca ah ee soo hormaraya meesha imaanayay lagu kala eriyo xabada lagu rido. sidoo kale hotelkan deganayo waa soo weerartay dawladdu ciidamadeena amniga security hotelka ilaalinayayna waa la soo weeraray arna waa la dhaawacay dagaal xunna meesha waa ka dhacay welina meelaha qaarkood weli dagaal xabadii waa ka socdaan dib ayaa la isaga cabiyo waa ka carareen meesha waa ka tageen laakiin waxaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dhaqanka noocaas ah ee dalkan ka bilowday maanta haddii aanay dadka Soomaaliyeed wax iska dhihin oo aanay wax isaga ogaanin oo aanay tallaabo ka qaadin dalkan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee 4 sano la soo dhaafay sida ogaanta dal ku joogay haddana asagoo xilligiisa dhamaaday inuu haddana dhiig sokeeyo daadiyo u taagan caleena shacabka Soomaaliyeed arrintaas arrin la aqbali kara maaha. waxaan ku baaqayaa banaanbixi waa halkiisi waa meeshiisi waa waqtigiisi saacada la joogo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho meesha uu joogo inuu ka soo dhaqaaqo oo daljirka Dahsoon soo aado baabayaalan keensan dadka xabadeynaya meelaha lagu kala cararaya ma aha wax oo gooya xorriyadda dadka inay istaagto ama dadku ay cabsadaan oo ay baqaan. sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxa caawa ka dhacay daljirka Dahsoon iyo hotel Maida waa foolxumo tii ugu xumeed waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel bannaan waa weerar lagu soo qaaday dawladnimada Soomaaliya dimuqraadiyadda Soomaaliya xorriyadda shakhsiga Soomaaliga ah oo la rabo in hadda loo bilaabo qarniga 21aad dictatoriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaan ku raadayay adoonsi loo bilaabo ay tahay ma aqbali karnaa leenahay dadkana ma aqbali karnaan dadka Soomaaliyeed inay aqbali karnaa anaga ha muujiyaano ha isku soo baxaano barxadii daljirka Dahsoonada noo balana saacada la joogo qof walba meeshii joogto inay ka soo dhaqaaqdo ayaan u soo jeedinayaa oo aan isugu wada nimaado daljirka Dahsoon hadii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin maanta ayay taagan tahay xorriyadaada maanta hana leeyahay cili leeyahay in ka baxsaneen iyana naga baxsanin xorriyadeena iyo madax banaanideena iyo xuquuqdeena dastuuriga hadii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin.